السلام عليكم أصحابتي إذا قيمة بدن كسر هذا يوتيوب channel كإسماعيل عبد الله Soomaaliya maanta ma joogto halkii ay shalay joogtay waxa socda dhaqdhaqaaqyo culus oo isku martaabanaya siyaasadda amniga iyo dhaqaalaha dalka kuwaas oo muujinaya in dalka uu galay marxalad cusub oo go'aan qaadasho iyo isbedel ah magaalada Muqdisho ayaa noqotay xarunta ugu weyn ee isha lagu hayo halkaas oo saacadaha soo socda lagu sugayo dhacdooyin taariikhi ah oo mid walba uu xambaarsan yahay fariin culus dowladda federaalka waxay ku dhawaaqday in 48 saac gudahood si rasmi ah loo bilaabayo qodista shidaalka aniga madaxweynihii magacaabay isla shaqaxayo arrin muddo dheer ah la sugayay waxaa la filayaa dhaarinta xildhibaano iyo wasiiro cusub taasoo muujinaysa dib u habeyn siyaasadeed oo socda wasaaradda arrimaha gudaha ayaa dhaqaajisay dib u heshiisiin siyaasadeed gaar ahaan dhanka maamulka koonfur galbeed isla waqtigaasna waxaa la diyaarinayaa bandhig ciidan oo aan horey loo arag si loo muujiyo awoodda ciidanka qaranka marka la isku daro dhammaan arrimahan waxay abuureen jawi culus oo dad badan isweydiinayaan maxaa dhab ahaantii socda Soomaaliya ma u gudbaysaa heer cusub mise waa kaliya buuq siyaasadeed warka ugu miisaanka culus waa kan ka soo baxay hay'adda batroolka Soomaaliya halkaas oo gudoomiye Cabdiqaadir Aadan oo si cad u sheegay 48 saac gudahood waxa bilaabanaya qodista shidaalka tani ma ahan war caadi ah waa war soo afjaraya sugitaan dheer oo sanado badan socday furaya albaab dhaqaale oo aad u weyn isla markaana keeni kara fursado iyo khataro isku jira wararka ugu dambeeyay ee laga helayo ila kala duwan ayaa tilmaamaya in shirkado caalami ah ay horey u bilaabeen diyaar garow farsamo in sahannimadii horey ay muujinayaan raasumaal shidaal oo rajo weyn leh in dawladda ay dadaal ku bixinayso in heshiisyada la ilaaliyo si aysan u dhicin muran sharci iyo mid siyaasadeed laakiin su'aasha ugu weyn wali way taagan tahay shidaalkan haddii la soo saaro yaa ka faa'iideysan doona siyaasadda oo isla markaas kacsan isla waqtiga lagu dhawaaqayo shidaalka waxaa socda dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo aan la isku indhatiri karin gudoomiyaha baarlamaanka Aadan Madoobe ayaa dib ugu soo laabtay Muqdisho iyadoo la filayo kulamo culus xildhibaano cusub iyo wasiiro ayaa la dhaariyay taasoo tilmaamaysa in dawladda ay dib u habeen sameynayso guddiyo cusub ayaa loo magacaabay dib u heshiisiin siyaasadeed taasoo muujinaysa in weli jiraan khilaafaad u baahan xal tani waxay muujinaysaa hal arrin oo muhiim ah shidaalka bala siyaasadda isku dhacyo ama fursad qaran dhanka kale biri oo ku beegan 12 Abriil waxaa Muqdisho ka dhacaya bandhig ciidan oo aad u weyn waxaa lagu soo bandhigi doonaa taangiyo culus gaadiid dagaal diyaarado dagaal iyo drones nidaamyo difaac oo cusub wararka ugu dambeeyay waxay sheegayaan in bandhigan si gaar ah loo adkeeyay amnigiisa in uu yahay fariin loo diraayo gudaha iyo dibadda in dawladda rabto inay muujiso awood balaas diyaar garow tani waxay la xiriirtaa arrinta shidaalka sababtoo ah kheyraad kasta wuxuu u baahan yahay ciidan ilaaliya 48 saac kadib Soomaaliya waxay noqon kartaa dal cusub shidaal baa qarxaya siyaasaduna way kacsan tahay ciidankuna awood buu muujinayaa laakiin su'aasha dhabta ah waa 15 maxaa naga xiga 30 maalmood meeshaasana joognaa doorasho ma dhacayso goormay dhacay noocee waaye yaa maamulaayo sayuuxiyiin lama yaqaan wali maanta ilaa maalmaha doorashada xilligeedii ka dhiman nooca doorashada ee la qaban karo ha la qabto qurux dhalanteeda oo waxba ka jirin yaan lagu riyoonin